بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسن داوداشا قيمها يقدرت نغا مدن ميل والبو aad joogtaan. halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka. taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha December sanadka 2023. daawadayaal barnaamijkeena qaybtan qodobada aynu diradda ku saari doonaa haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay gumaystaha Israa'iil oo qirtay in 24 saac ee la soo dhaafay 43 askari looga dhaawacay gudaha marinka Gaza. dhaawacyo laga daabulayo Gaza loona daabulayo Tel Aviv. guutada Ciisadiin al-Qassam oo ku dhawaaqday in ay burburiyeen godad difaacyo u ahaa ciidamada Israa'iil kuna dileen ku dhawaad 10 askari. wasiirka difaaca Israa'iil oo sheegay in 7 meel laga soo weeraray bilowgii howlgalka duufaanta al-Aqsa 6 kamid ahna ciidamadoodu ay howlgal ka sameeyeen. isbedelada ka socda gudaha xadka Lubnaan iyo dilka loo geystay askar Israa'iiliyiin ah iyo qodobo kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay duqeymaha ka soconaya marinka Gaza iyo dagaalada ee markale soo dhawaada. daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waxaan ka codsanayaa inaad muuqaal ka share gareyso oo la gareyso si dad badan u gaaro mahadsanid. sidoo kale waqtiga salaada hadii lagu taagan yahay iska jooji barnaamijka soo guda waajibaadka alle aynu ku dadaalna akhrinta quraanka kariimka adkaarta tasbiixda saliga nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. barnaamijka ayaynu gudagalaynaa waliba qodobada tooska ah ee haatan warbaahinta ay tabanayaan ayaynu si toos ah ugu bilaabaynaa. sida ay daabacday hadda Al Jazeera ciidamada Israa'iil waxa ay qirteen in 43 askari ay kaga dhaawacmeen dagaallo ay iska caabinta kala kulmeen gudaha marinka Gaza 24 saac ee la soo dhaafay. horaantii maanta ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in howlgallo dhacay xalayto lagu dilay sargaal iyo waliba sidoo kale askari. 4 kalena ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen taasoo tirada dhimashada tan iyo markii dagaalka uu bilowday ka dhigaysa 491 askari waa sida iyagu ay sheegteen kuwaasoo isugu jira saraakiil iyo askar sida lagu sheegay war-saxaafadeedkooda. inkastoo qasaaraha uu intan ka badan yahay oo waliba la sheegayo in 4000 uu ku sii dhow yahay haddana Israa'iil waxay sheegaysaa in wali 500 askari aan looga dilin dagaalka waxaana la ogyahay maalin walba markay ugu yar tahay in la dilayo in ka badan 10 kamid ah ciidamadooda. geesta kalena haddii aynu eegno guutada Ciisadiin al-Qassam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta Hamas ayaa ku dhawaaqay duqeyn godad furun u ahaa ciidamada Israa'iil oo ka koobnaa 8 askari oo bariga kaga beegan xerada qaxootiga Burej ee bartamaha marinka Gaza. weerarkan ayaa waxaa lagu sheegay in ay fuliyeen ciidamo si gaar ah u diyaarsan isla mar ahaantaana halkaasi lagu dilay askartii 8 ahayd ee ku sugnayd. waxaana sidoo kale la sheegay inay jiraan xubno kale oo kamid ah ciidamada Israa'iil oo dhaawacyo uu soo gaaray. geesta kalena wasiirka difaaca Israa'iil Gallant ayaa sheegay in tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka Gaza 7 bishan Israa'iil laga soo weeraray 7 jiho. waxa uu tilmaamay in ciidankooda ay ka shaqeeyeen oo howlgallo ay ka fuliyeen 6 kamid ah 7 jiho ee weerarka looga soo qaaday waa sida uu hadalka u dhigay. inkastoo aanu sheegin howlgalladaasi inta ay socdeen waxyaabaha cajiibka ahaa ee ay kala kulmeen kooxaha iska caabinta Falastiiniinta. wariyaha Al Jazeera waxa uu soo sheegayaa in diyaaradaha qumaatiga u kacay ee loo yaqaan helicopterka ee militariga Israa'iil ay ka soo daabulayaan askar dhaawac ah oo weeraradii ka dhacay Gaza lagu dhaawacay waxaana laga dejinayaa magaalada Tel Aviv gaar ahaan isbitaalka lagu magacaabo Ijelov si halkaasi loogu daaweeyo askartan. waxaana laga dareemayaa askartan xaalado qoys ah iyo waliba in wixii ay la soo kulmeen ay ahayd wax aysan wali arkin intii ay dunida saarnaayeen. geesta kalena ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay dhimashada mid kamid ah askartooda kadib dhaawac halis ah oo maalmo ka hor ka soo gaaray dhanka xadka Lubnaan. dhanka kalena janaalka 14 ee Israa'iil waxa uu sheegay in qof uu ku dhaawacmay kadib markii gantaal liidka taangiyada ah uu ku dhacay deegaanka Admit ee galbeedka Jaliil una dhow xadka Lubnaan. ciidanka Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku yiri sidan: waxaan la soconay rasaas dhowr ah oo laga soo riday dhulka Lubnaan kuna wajahnaa beeraha Sheba iyo xerada Shomera. waxayna intaasi ku dareen in ciidamadooda cirka ay beegsadeen goobo militari iyo kaabayaasha dhaqaale ee Xisbullah. horaantii maanta Xisbullah waxay ku dhawaaqday inay hub nooca bartilmaameedka saxda ah la beegsatay
halka lagu magacaabo Zabtiin ee Israa'iil ee dhanka beeraha Sheba ee Lubnaan. markii dambe waxaa lagu dhawaaqay in qolka kormeerka lala beegsaday gantaal meel u dhow xerada Shumera ee Israa'iil. xubno ka tirsan Israa'iilna halkaasi waa lagu dilay, kuwa kalena waa lagu dhaawacmay ayaa lagu yiri bayaanka. dhanka kalena janaalka 12 ee Israa'iil waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan inay bedelaan qorshahooda Gaza sababta oo ah waxay ogaadeen in dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga Hamas kaliya lagu jibin doono dagaal dheer oo dhanka duqeymaha ah. inkasta oo 81 maalmood oo ka soo wareegtay markii uu bilowday dagaalka Gaza ay weli Israa'iil awoodi la'dahay inay ka guuleysato Falastiiniinta, haddana Israa'iil kuma guuleysan inay gaadho mid ka mid ah yoolalka ay ku dhawaaqday oo ay ugu horeeyaan soo furashada maxaabiista Israa'iil ee ku xiran marinka Gaza iyo ciribtirka dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Hamas. inkastoo haddaba Israa'iil ay wado duqeymaha dhanka cirka ah, haddana waxa ay u baqayaan markan askartooda sababta oo ah furimaha hore ee dagaalka waxa lagu gumaaday ciidamadooda oo waxa ay ku noqdeen furimaha askar socod barad, yacni caruur socod barada oo aan tallaabta qaadi karin markii ay ka hor yimaadeen ciidamada aan soo jeesan ee Falastiiniyiinta. taasi waxay keentay marka in Israa'iil ay isku daydo inay isbeddello waaweyn ku sameyso dhanka furimaha dagaalka, kaliyana ay wado duqeymaha iska socdo, taasoo la micno ah in la doonayo in lagu laayo shacabka Falastiiniyiinta isla markaana intii yareed ee hartay dhanka marinka Gaza la baabi'iyo oo duqeyn lagu baabi'iyo lagana dhigo meel lama degaan ah ama dhul saxare ah. haddii aynu eegno wargeyska Yedioth Ahronoth ayaa shaaca ka qaaday dhimashada askari Israa'iili ah iyo weliba sidoo kale dhaawaca askar kale gudaha marinka Gaza. waxaana sidoo kale la sheegayaa in cudurka loo yaqaano fangaha uu 10 ka mid ah askartaasi u soo ritay. wargeysku waxa uu tilmaamay in Israa'iil ama askari Israa'iil uu dhaawac halis ah ka soo gaaray xubnaha jirkiisa furimaha hore ee dagaalka, kadibna waxaa jirkiisa ka soo baxay fanka kaas oo la sheegay in daweynta ay wax ka tari weysay, waana xanuun aad halis u ah. wargeysku waxa uu sheegay in 10 ka mid ah askarta dhaawaca uu ku dhacay cudurkan oo kale, waxaana uu tilmaamay in laga yaabo in caabuqan uu ka dhashay wasaqda ciidda iyo weliba sidoo kale biyaha aan nadiifka ahayn. dhinaca kale guutada Al-Qudus ayaa ku dhawaaqday inay beegsatay 2 gaari oo ay wateen ciidamada Israa'iil oo ay ku dhufteen madfaca loo yaqaano Al-Yaasiin 105 xaafadda Sheekh Radwan ee magaalada Gaza. Al-Saraya oo ah garabka military ee dhaqdhaqaaqa Jihaad Islaami waxa ay sheegeen in duqeymo xoogan ay ku garaaceen saldhigyada ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin deegaanka Juhar al-Dik ee bartamaha marinka Gaza. waxay intaasi ku dartay in dagaalyahanadeeda ay tan iyo aroortii maanta ay ku jireen dagaalo ba'an, iyadoo ciidamada gumaysigana ay gudaha u galeen jiidda hore ee bariga iyo waqooyiga Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. madaxii hore ee ciidamada Israa'iil Dan waxa uu isna sheegay in Tel Aviv ay ku guuldareysatay dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Hamas 30 maalin kadib markii ay bilowdeen, iyadoo aan la gaarin yoolkii lagu dhawaaqay. janaalka 7 ee Israa'iil ayaa ka soo xigtay sargaalkan sidan: waan ku guuldareysanay dagaalka aan kula jirno Hamas. guushayadana waxay noqon doontaa in aan meesha ka saarno ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. yacni waxay ka dhigan tahay in Benjamin Netanyahu uu ku guuldareystay qorshihii howlgaladiisa. wariyaha Al Jazeera ayaa hadda ku soo waramaya in duqeymaha Israa'iil ay la beegsadeen bariga iyo waqooyiga magaalada Gaza ay waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah, iyadoo oo weli ay socdaan iska horimaadyo xoogan oo u dhaxeeya iska caabinta iyo weliba ciidamada gumaystaha aagag badan oo ka mid ah marinkan. haddaba daawadaan u duceyn walaalahan Falastiin, aragtidaada fadlan qaybtoosa kommentiga inoogu mahadsanid. barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ka daawaneysaan Markhaati TV qaybta naga intaa barnaamijka xigeentan ku kulmayno. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.